السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة سودا وهذا سودا وهذا. طبعا waxaan rajeynayaa inaad program ka faa'iideysan doontaan. waan sugaynaa inta khiyaarta inteeda kale ay ka imaanayso. waxaan rajeynayaa intaanan bilaaban in codka uu hagaagsan yahay codka programka intaanan guda galin. waxaan rabaa codka in ay iga hubisaan hadda si fiican maqashaan dhadaan waan ku maqalnaa oo mahadsantiin. okay مالي مقلمية ولا ليال خيارتها عدك إذا ما سو قاري. أوكي هذا أما سنتين اوكي وما سنتين وعدك عادي ويا خيرت انت بنسي اسكو راعدي وهم بلاونينا marka intii waxaan rajeynayaa in number nagu filan aan ku bilaabi karno inay joogaan. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin akhyaarta sharafta leh. waxaan guda galaynaa marka programkii ama wax iska weydiinaynaa su'aalihii inta badan خيارتها هل كان كوتشرتو انت انا سؤالها باللعبين سجود سؤاش انت سو قرين وحير waxaan rabaa inaan dul maro su'aalahan si ugu wada jawaabo markii aan dhaho su'aalahiina soo qora aan ka codsanaa inay soo qortaan khayarta inta ku jirto waxaan idin rajeynayaa Ramadan mubaarak Ramadan kariim amaasho wanaagsan Ilaahay naga aqbalo waxa idin la hadlaayo waa admin Cabdirasaaq. waxaan rabaa inaan kolka hore dul maro barnaamijkan iyo dad badan laga yaabaa inay gadaal laga soo qabsadeen. intiina badan hadda meeshan ku jirtana waxaa tiin dadka natiijada sugayay oo programkan xareeyay October la soo dhaafay iyo akhyaar kale oo ayagana dadkii sanadkii ugu dambeeyay guuleystayaasha kamid ahaa meedii hore selectii noqday programkoodana oo hadda socdo qaarna interviewga ay mareen qaar ay sugayaan interview oo la isku wada jira. marka su'aalaha waa ka wada jawaabi doonaa insha Allah adoo maasantiin. marka si guud horta programka lotteriga waa wax muddo soo jiray ma aha wax hadda bilowday. taariikhdiisa marka dib u fiiriso 1995kii 95tii yaa ugu horeysay oo programkan dadka ugu horeeyay ku baxeen inkastoo asaga sharci laga dhigay 90kii markay ahayd 1990kii waa muddo 30 sano laga joogo. wixii ka dambeeyay marka ka soo bilowday 95kii dadku siyaabo kala duwan adduunyada dhanba ugu bixi jireen loo xareyn jiray marxalado kala duwan ha soo maro offline ha iska ahaado mararka qaar warqado gacanta laga buuxinayo oo post lagu diro ha ahaato mar email ha noqdo hadana hadda oo uu yahay ilaa laga soo gaar hadda uu yahay electronic ama online laga xareynayo qofka isagoo gurigiisa joogo. marka maxaa marka steps oo laga baahan yahay bay isweydiinayaan dadka hadii mar October programku marka October uu furmaa sanad walba usbuuca ugu horeeya bisha 10aad wuxuu xirmaa usbuuca ugu horeeya bisha 11aad November. steps dhowr ah mari doontaa marka guuleysata kadib oo ay kamid yihiin qofka hadda tusaale hadda intiina May sugayso kale markuu natiijada May helo qofku inuu buuxin doono first horta inuu heli doono selectii haduu noqdo inuu buuxin doono form la yiraahdo DS260 marka ma buuxini kartid ilaa ka mid noqoto dadka guuleystayaasha ah. koowa ina winner noqotid oo tusaale hadda May kale toddobadeed markii la gaaro natiijada fiiriso waa ina ku jirtaa dadka selectiga la doortay. second talaabada xigto qaadayso waa ina buuxisaa form la yiraahdo DS260 gaas marka dirto kadib
waxaa sugi doontaa wax loo yiraahdo, waxaa la socon doontaa wax la yiraahdo VB ama fees bulletin, nambarada halka ay marayaan. waxaa kaloo kusii xigi doono nambarkaaga markii la gaaro in aad heli doonto wax la yiraahdo 2NL ama warqadda labaad ee ballanta, yani 2NL second notification letter warqad la dhaho, warqadda cadaynaysa maalinka iyo safaaradda aad tegaysay, saacadda interview ku qoran tahay, iyo stepka ugu dambeeya oo inaad interviewga martid, kadibna interviewga wixii aad ka hesho ama yani visa lagu siiyo. alxamdulillah, waana midda aan wada rajeynayno. markii steps saas isu daba yaalaan, dadka qaar marka waxay isweydiiyaan how aan ku ogaan karaa inaan interview aadayane, sideese yani dadka interviewga loogu kala yaraa. su-aalo isdaba yaalla waaye, yani goormeese aan interview mari karaa markaan may helo. waa iska su-aalo common oo dadka isweydiiyaan. first horta waxaa sameynaysaa intaadan interviewga aadin iyo howlahaasoo dhan aad gelin, markaad select noqoto oo may la gaaro oo aad guulaystayaasha ka mid noqoto, waxaa fiirinaysaa wax la yiraahdo case number. warqadda markii aad natiijada eegto, codkayga ma la maqlaa akhyaarey? call baa soo galay, marka waxaan ka yaabaa inuu codkii lumay. codka ma la maqlaa? ha ii soo qora si aan yani hore ugu sii soconno. marka qofku wuxuu isweydiin karaa sidee interview inaan helayo ku ogaanaya, xageen kala soconaya. waa mahadsantihiin saaxiib yaal, aad waa mahadsantihiin. marka qofku wuxuu isweydiin karaa su-aal common waxaa jirto, aniga waa guulaystay kaba soo qaadmay, yani sideen ku ogaan karaa marka yani xilliga interviewga maraayo, sidee liigu yeeri karaa, xageense kala soconaya. horta marka aad guulaystayaasha ka mid noqoto, waxaa kow aad fiirinaysaa wax la yiraahdo case number wax la dhaho. yani warqadda markii aad natiijada fiiriso oo aad ku laabato website-ka aad ka xaraysay oo dvprogram.state.gov ahaa, oo confirmation numberka lagu siiyey aad geliso, oo warqadda ay kuu soo baxdo in lagu doortay ah, oo magacaagii xogtaada ku qoran tahay. scroll down, yani inaa hoos inta aadid, warqadda qaybta hoos waxaa kaga qoran xogtaadii oo dhammaystiran. tusaale website-kan oo kale markaa soo gashid oo qaybta status check aad gasheed, yani wuxuu ku siin doonaa waa guulaysatay ama not selected. yani marka select markii lagu dhaho, waxaa fiirin doontaa warqadda qaybteeda hoose waxaa ku qoran wax la yiraahdo case number. case numberkaasa marka wuxuu go'aamin doonaa xilliga interviewga lahaan doonta adiga, xilliga interviewgaaga uu ku aadan yahay. case numberkaasa go'aaminayo. tusaale 55,000 oo qof ay u baahan yihiin aan dhahnay, waxay aqbalayaan above yani 55,000 wax ka sareeyo. tusaale waxay gaarsiinayaan 90,000 ama 100,000 inay select gareeyaan. yani wixii 55,000 kasii koreeyo waa iska high risk oo cases waxaa jiro ayadoon ballanti la gaarin, waqtiga ku dhaco oo aan yani helin, safaaradda ballanteeda aan helin. marka caseskaaga mar walbuu hoos usoo dhow yahay, waa mar walbuu aad ka jaanis badan tahay qofka kaa koreeyo. tusaale haddii aad noqoto 1,000 ugu horeeyo, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ugu horeeyo, jaaniskaaga aad u fiican yahay. 20,000 haddaa ku jirto, yani mar walbo sii fogaato, waa mar walbo high risk uu sii noqdo, waayo waxaan wuxuu ku xiran yahay hal sano waayo fiscal yearka. tusaale may markaa guulaysato, October yaa loo yeeri doonaa dadka guulaystayaasha ah. qofka ugu horeeyo October soo socoto interviewga mari doonaa ilaa October kale koodeeda, yani September 30keedu ku egyahay sanadka dambe. marka dad waxaa jiro ayagoo ballanti helin oo waqtiga saa kaga dhamaado, nambaro fogna haysto. marka kow waa inaad ogaataa case numberka aad hesho. case numberkaagaasa wuxuu go'aaminayaa maalinta interviewga aad marayso. tusaale haddaa nambarada hore ku jirtid, waxaad ka mid tahay dadka ugu horeeya loo yeeri doono. yani marka hore baa foomka ka buuxinaysaa, isla May dhexdeeda ama June waxaaga markaad dhamaysatabo waad sugaysaa. marka haddii number tusaale hadda 2,000 aad haysato ama 1,000 ugu horeeya aad ka mid tahay, October ay u badanta inaad martid, waad sugaysaa. marka foomka aad dirtid, waxaa jiro ilaa October inaan qofna loo yeerin, oo dadka hadda hawsha socoto September 30keeda lasoo gabagabeyn doono sanadkan. waxaa marka DS260 foomkaasa buuxinaysaa si iska degdeg ah, yani inkastoo laakiin loo baahan yahay documentskaaga oo dhan inaa haysato markaa foomkaas buuxinayso, wax walba ay kuu dhammaystiran yihiin oo aadan qabi ahayn. si foomkaas yani waxaa kamid waxyaabaha la rabo inaa haysato baasaboorkaagii, waxaa kamid waxbarashadaada inay ku agtaala shahaadooyinka, waayo waxaa lagu weydiin doonaa foomka markaa buuxinayso xilligaa iskoolka dhamaysay, xilligaa bilowday, haddaad jaamacad dhigatay, sidoo kale shaqooyinkaagii, warqadihii shaqada waa inaa haysataa, yani kambanigaas xilligaa u shaqa bilowday inaad taqaano. waxaasoo dhan markaa foom ku qortid
kadib foomka aad dirtid waxaa la soconaysaa, waana ka hadli doonaa visa bulletin wax la dhaho. visa bulletinka idinkoo kale dadka hadda natiijada sugaya wuxuu u bilaaban doonaa bisha August ee 8aad. August marka waxaa la socon doontaa nambarada la maraayo. Waxay ka dhigan tahay October meeqa nambara loo yeeray, November 2nd haddana meeqa loo yeeri doonaa, yacni saasay ku soconaya December, January. marka adiga tusaale waxaa tahay 5,000 oo kale, 5,000 case numberka waa 5,200 aan iska dhahno. August waxay soo daayeen in 3,000 ay ballamin doonaan bisha 10aad. waxaa leedahay okay, visa bulletinkan kuma jiro ani maadaama 5,000 ahay, 3,000 iyo xoogaa u yeereen. waxaa suga haddana September ilaa August bilaabayana dhahnay dadka loo yeer ballanta heli doono oo October interview mari doono. September haddana sugaysaa VB-ga haddii haddana 4,000 ay ku daraan, almost waxaa la taagan 3 iyo isku dar 4 7,000. marka waxaa leedahay ani 5,000 ahaa waa ku dhex jiraa. preparationkaaga iyo diyaar garowgaaga bilaabaysaa maadaama aad sugayso warqadii ballanta marka ayada oo aad qiyaasayso. waxaasoo dhan iyadoo detailed ah oo faahfaahsan innagaa beedka soo dhigi doono, ka hadli doono si gaar ah waa maxay visa bulletin. markii insha Allah natiijadana ay soo baxdo wax walbana la isla jaan qaado. hadda waa ku yara wareereysaan si guud intii natiijada sugaysa, laakiin dadkii hore helay aad bay u fahamsan yihiin. qof walbana waa uu fahmi doonaa. waxaa kuu soo haray marka lambarkaagi la gaaray, waxaa kuu soo dhici doona wax la yiraahdo warqadii ballanta oo appointment letter la dhaho, magacyo kale leedahay 2NL la dhahaa. maadaama fast NL macna fast notification letter ay ku ahayd warqadii hore ee guush ku tilmaamaysa inaad guuleysatay, warqadan dambe waxay ugu magac daraan 2NL ama second notification letter oo ah warqadii go'aaminaysa inaad ballanta heshay, yani warqadii ballanta la dhahaa, appointment letterna waa la dhahaa. adigu warqadii ballanta interviewga ku aadi lahayd aad sugaysaa, then interviewga is xaadirinaysaa. interviewga marka go'aanka adaa iskale safaaradda aad rabtid inaad ku martid. tusaale markaa guuleysatid waxaa go'aamin kartaa safaaradda adiga aad rabtid, cid kugu qasbaysa ma leh. haddii Soomaaliya ka xareysa waxay kugu soo qori doonaan safaaradda Soomaaliya ee safaaradda Kenya ku taal, safaaradda Mareykanka uu Kenya ku leeyahay, Soomaalida ku soo qoraan. safaaraddaas haddii aad u aragto inaysan adiga kugu fiicnayn waa bedelan kartaa, cid kugu qasbaysa ma leh. waxaa kaloo lagu ogolyahay xataa haddii mar foomka aad buuxiso inaad dib inta u furtid aad wixii aad rabto ka bedeli kartid oo foomka aad dib u diri kartid, ama safaaradda lafteeda iska bedeli kartid intaan foomkaaga process la marsiin. laakiin waxaas dhan waxaa ka fiican in marka horeba aad taqaano safaaradde ayaan ku mari doonaa aniga interviewga, oo marka horeba aad go'aansatid embassiga aad aadi lahayd ama safaaradda aadi lahayd. marka yani marka safaaradda aadi lahayd go'aankeeda adaa iska leh, marka hore aad dooranaysaa. hadda marka warar baa laga yaabaa inaad maqlaysaan oo ah safaaradda Mareykanka ma aqoonsana documentska Soomaaliya. horta si guud Mareykanka sidii burburka u dhacay wixii ka dambeeyay dokumentiyadeenna credentialkooda yani ama aqoonsigooda aad u sii lumaysay. record ahaan ayagu way ka cabtaan inta badan safaaradda markaad tagtid. laakiin hadda arinta taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee ku leeyahay Kenya ma aqoonsana documentska Soomaaliya waa arin yani ilaa xilliga Trump uun wax issue soo kordhay waayo safaaraddan waxay ahaan jirtay safaaradaha ugu fiican ee Soomaalidu ay ku marto Nairobi markii la dhaho wixii ka horeeyay Trump, ahdigii Trump, yani xilligii Trump intuu joogay wixii ka horeeyay waxay ahayd safaaradaha ugu fiican. 16kii oo kale wixii ka bilowday, ama yani 17kii Trump markuu yimid wixii ka horeeyay 15kii 13kii yani iyo 14kii ilaa wixii kasii horeeyay oo dhan Soomaalidu halkaan ay ku mari jireen. waxayna iska ahayd safaarad iska caadi ah, documentska Soomaaliya oo sida hadda uu yahay kasii liito oo yani private yani dalada gaara qof walba shahaado kala imaanayo waa lagu mari jiray, dadkana way siin jireen. marka waxyaabahan insha Allah iska dhamaan doonaan. iyada hadda waxay leedahay yani inta badan dhalinyarada hadda ku martay fiisayaasha u diideen, waxay leeyihiin ma aqoonsanin documentska Soomaaliya. laakiin waa arin ayaga ku gaar waa safaarado kale oo badan jiro dhalinyaro ka mareen ama Asia haato ama meelo kale haato, yani caadi documentski iyo processkoodii si caadi ah u maray, qaar fiisi helay, kuwa hadda sugay interviewga. marka go'aankada iska leh. Soomaaliya hadda joogtid Kenya bas ma safaaradda dariska ah sida Ethiopia kale, Djibouti oo kale way wada shaqeynayaan. marka go'aankada iska leh. marka taas waxaa go'aansanaysaa intaadan foomkaaga buuxin. hadduu Ilaahay yiraahdo aad ka mid noqoto dadka guuleysanayo, waxaa go'aamin kartaa war aniga safaaradda ii fiican, safaaradeen aadi karaa marka laga reebo safaaradaha hadda laga sheegayo dhibaatada. adduunyada oo dhan meesha aad rabto aad, marka ama Asia aad ama Africa meelo kale oo kamid aad,
adiga iskale laakiin Soomaaliya gudaheeda laguma maro xamarna ma shaqeyso safaaradda ku taale Mareykanka hadda midna waa inaan maskaxda ku haysaa safaaradan Kenya wadamo badan ay u shaqeysaa ma aha anaga iyo Kenyaanka bas ah waxa ku maro Sudan South Sudan dadka ka soo jeeda Nairobi ku soo qoraan Uganda oo artaan wadan dhisan ah immigrant visa waxa la yiraahdo oo lottery uu kamid yahay kuma maraan Kampala ay waxay u soo gudbiyaan ayagana halkan Nairobi ku maraan Burundi kamid ah ayagana Nairobi bay ku maraan marka culayska inta la eeg waa dareemi kartaa safaarad hayso oo fiisayaasha ay bixinayso lottery kaliya oo sanahayna ay yihiin kumanaan family isu dacwoonayo iyo fiisayaasha kale ee nan immigrantga sida waxbarashada ama dalxiiska waxyaabaha kale marka culayska noocaas oo kala safaaradda loodkeeda iska badan ama waxyaabaha ay qabanayso marka safaarada kale oo jaamkan ku yar yahay waad u bedelan kartaa marka istaabiyada amari doonto waa saas insha Allah khiyaarta kale ee ayagana winnerska ah selectiga sanadkan helay ama sanadka hore helay ee hadda hawshooda socoto go'aan hadii foomkaaga uusan process marin waxa sameyn kartaa inaad safaaradda Nairobi hadii aad ku qorneed isaga wareegi kartid hadii foomkaaga process uu maray oo KCC ay ku tiri waxba kama qaban karno mana ku bedeli karno waa another case in bal wax kale aad sameeyso حتى rescheduling samee hadii appointmentigaaga meedan uu soo dhacay oo document Soomaali kaliya aad wadatid ballanta dib waa u dhigan kartaa safaaradda inta la hadashid ilaa May ilaa July oo kale waa geysan kartaa August inta xal hagaagaya ama wax iska bedelayaan maadaama hadda meelo badan lagaga qaylinayo warkoodana uu meelo badan gaaray oo cabasho aad hashtags ama waxyaabo kale ama hadii noqoto wasaaradda arrimaha dibadda iyo qolooyin kale oo la xiriiro bal hadda cabasho ay socoto oo sameyn kartaa hadii arday aad tahay ama waxbarasho haaf oo kale aad wadato kale oo jaamacad wadanka banaankiisa aad ka wadato ayadana way ku anfici doontaa marka khiyaaray si guud waa saas macluumaadkaas stepskaas amari doontaan hadii aad cusub tahay oo aad barnaamijkan wax badan ka fahansaneen laakiin programkan xareysay October insha Allah page-keena Somali Green Card Lottery wuxuu ku noqon doonaa isha xogaha ugu saxsan aad ka heli doonto oo macluumaadkeena uu noqon doono mid ku caawin doono ama ku hagi doono waxaan diyaar u nahay from laga bilaabo 7 May markii la gaaro Ilaaheedmo inaadan lumin oo aadan xogo khaldan darteed aadan khalad u galin hadii page-keena aad ku xiran tahay akhyaarta kale xareysayna waad ku soo xiri doontaa page-keena si ay uga helaan xogaha saxda ah uma santiin markaan waxaan u guda gali doonaa su'aalihiina soo kooba insha Allah su'aalihi hore dhan way dhaafeen maadaama wax badan aan hadlaayay waxaan rajeynayaa in ay igu soo celin doontaan oo qof walba su'aashiisa hadda uu ii soo qori doono aad uma santiin wuxuu dhahay deeq wuxuu yiri markaan xareysanayo application-ka jaamacad maanan dhameynin waxaanan ku xareeyay dugsi sare haddana jaamacad waan dhameeyay association ku xareyn karaa bachelor degree deeq waa mahadsantahay waa lagu ogol yahay waa caadi option-ka hore dooratay waxbarashada wax saameeyna ma leh marka hadda marka foomka xareynaysid yaad ku buuxin doontaa wax walba waxbarasho aad haysato sakari wuxuu dhahay goormay xareysan doonaa insha Allah October markii la gaaro ya xareyn doontaa duulayra safaaradda Kenya maxaa lagu xaliyay safaaradda Kenya wali waa saan ka hadlay waa iska issue taagan waxaan rajeynayaa in insha Allah khayr ku dhamaan doonto laakiin hadda soofa waxba Soomaali ah wax ma siinayso inta badan oo waxay leeyihiin document-kiina ma hubin karno siyaasadii Trump oo malaysaa wali inay safaaraddan ka sii dhex shaqeynayso maadaama safaaradihii kale ay bedeleen safiiradii oo dimuqraasiga ay soo magacaabeen cid ayaga la shaqeysa ama ka tirsan iyo kuwan wali maysan soo fadhiisan qofkii uu soo magacaabay Joe Biden marka isbedelo badan kama dhicin siyaasadda Trump iyo Biden ee ku saabsan lottery-ga maxay ku kala duwan yihiin wali maadaama Trump uu xanibay Trump ma xanibay lottery kaliya laakiin wuxuu xanibay guud ahaan soo galootiga wadamo badan oo Soomaaliya ku jirto muslimiina haddana siyaasad ahaan markii la fiiriyo xisbiga Trump uu ka tirsan yahay jamhuuriga ama Republicanka marna raalli kama aha programka inuu sii socdo Trump xataa dhowr jeer isku dayay inuu joojiyo balse uu meel marin waaye waxyaabahan immigration-ka la xiriira ee Mareykanka oo qoranna ma aha wax hal qof uu go'aan ka gaari karo ama uu bedeli karo waa arrin u baahan muddo iyo sanado
iyo weliba in la isku raaco labada aqalba ay yani meel mariyaan. marka isaga dhowr jeer isku day uu sameeyey inuu joojiyo, diyaarna uu ahaa inuu barnaamijkan uu aad yani uu meesha ka saaro. dhowr jeer horena dhaleecayn u soo jeediyey, uu yiri yani waa dad waxay keenayaan uu yiri maadaama waxaan selective iska yahay dadka yani si uu wuxuu u hadlay aan fiicnayn oo ah dadka dunida ugu xun oo kale inay iska soo xulinayaan wax noocaasa. marka Trump siyaasadiisa marka la fiiriyo aad ay ugu adkeyd, inkastoo hadda dimuqraadiga ayagu iska yihiin waxyaabahan marka la fiiriyo immigrationka ay aad uga furfuran yihiin, haddana waxaan rajeynaynaa insha allah wax badan isbedeli doonaan oo arrimihii Trump weli waxaad moodaa inay sii jiitimayaan. su-aasha aan qabo wuxuu dhahay Maxamed, wuxuu dhahay su-aasha aan qabo waxa weeye loo tiri markii aan xariisanayay ayaan ka tegay dalkii hooyo oo aan aaday dal kale, warqaha iyo dhalashada waxaan ka qaadanaya dalka aan aaday. aada u mahadsan tahay Maxamed. horta dal kale haddaa aaday meesha aad joogto hawshaada waa kasii wadan kartaa. wait me for here. بس raalli hada marka Maxamed wadanka aad tagtay hawshaada waa kasii wadan kartaa, laakiin yani kumana qasbanid inaad soo laabatid oo warqadaha aad sheegtay sida certificate-ka dhalashada ama waxyaabihii la xiriira dambe baarista waxaa ka samaysan kartaa warqadaha sida dhalashadoo kale iyo asaasiga safaaradda wadanka aad joogto. okay, marka hawshaadan meeshaas kasii wadan kartaa. walaal meesha optionka su-aalaha qaar way dhaafayaan anigoo ka jawaabin. baasaboorkaygu wuxuu dhacayaa abriil 4 marka maxaa sameeyaa? waa caadi Cabdullaahi, markii uu kuu soo baxo baasaboor cusub samayso, kii horena sii gee safaaradda, diyaar, waxba kuma dhihi doonaan insha allah. luuqadda adnaan aad u mahadsan tahay. luuqaddu qasab ma aha English inaad ku hadli taqaanid markaa programka heshid. haddii safaaradaha dariska aad ku maraysose waa heli kartaa turjumaan, waa caadi. laakiin safaaradaha fogfog oo kale markaa ku marayso sometimes waa laga yaabaa inay caqabad kuu noqoto maadaama ayagu turjumaan Soomaali uu joogin. okay, Mustafa wuxuu dhahay interviewga markaan galo su-aasha waa idaafaysaa. raalli ahaad akhyaaray, qoraaladu aad u badan darteed yani su-aalo badan ay dhaafaya. igu soo celiya fadlan. saaxiib waxaan ku weydiinayaa warqadda dhalashada la iga rabo waa midee? gobolka Banaadir miyaa mise warqad yani sugnaanta iyo dhalashada? aada u mahadsan tahay Saadiq saaxiib. warqadda dhalashada caadiga ah meel walboo joogto, haddaa Banaadir joogto waxaa ka qaadanaysaa dowladda hoose ee gobolka Banaadir. degmo kale haddaa joogto sidoo kale. marka warqadda dhalashada ee deegaanka aad joogto laga bixiyo waay. sugnaanta iyadoo wax micno badan ma leh, dhalashada bas aa la iska rabaa. aada u mahadsantahay saaxiib. safaaradda kale sida Ethiopia, Uganda iyo South Africa ka waran haddii Kenya loo diiday? safaarad sidaan hore u sheegay meesha rabto aadi kartaa, ma ku qasbanid inaad Kenya bas joogtid. Uganda laakiin ma qabato howlaha lotariga. haddii Uganda aad ku qorato Kenya kugu soo celinayaan. saameyn may ugu yeelanaysaa haddaan dhammayn dugsi sare? triple A saaxiib, dugsi sare waa muhiim, waana basic si fiisaha u hesho. haddii shaqo fiican oo yani 2 sano khibrad shaqo aa wadatid oo 5 sano ugu dambeysay aa ka shaqeynaysay yani meel aa kasoo shaqeysay ah waa yani okay, waa caadi. laakiin haddana shaqooyinka waxay iska yihiin shuruudaha laga rabaa inay buuxiyaan, sida training hore oo inay wadatay shaqadaas, inay level ayaga waxaa jiro nambaro u qoran oo website laga fiiriyaa jiro shaqooyinka, inay shuruudahaas buuxiso. laakiin dugsi sare unbaa noo sahlan annaga haddaan Soomaali nahay. yani dugsiga sare waa inaad wadataa, haddii aad dhammayno hadda aad wadid waa inaad dhammaysaa. saaxiib waxaan ku okay, waan ka jawaab su-aashaas. nimco waxay tiri assalaamu calaykum walaalkay, waxaan ahay hooyo haysata 2 caruura, waxaan u baahanahay okay, waa issue kale, fadlan hala caawiyo gabadhan walaasheena ciddii awoodo. qaybta commentiga ku biin garaynaya lambarkeeda kastoo aanan hubin karin, haddana yani waa qof caawimaad inaga codsanaya. marka wixii awoodaan ha lagu caawiyo insha allah. okay, su-aalaha qaar ay ugu soo laalaabanayaan kuwii muhiimka, qaar kalena ma arko. okay,
cabdullaahi wuxuu dhahay su-aasheedu waxaa weye shahaado bajular kuliyadda shareecada haddaa haysato ma aqbalaan ayaga dugsi sare wixii ka sarreeya way ku caawinayaan maahna qasab maku aha inaa haysateed dugsi sare haddaa haysato shuruudii waa waafaqsan tahay wixii ka sarreeya ama shareeca ahaato ama wax kale ahaato waa okay marka ayaga dugsi sare unbay kaa fiirinayaan wixii kaa sarreeyana dee waa wax qofkan waxbuu soo bartay way ku saacideynayaan location laakiin dugsigaaga sare hadduu english ahayn oo carabi yahay turjumaan waa inaa u raadisaa waa in lasoo turjumaa waa in meel la yaqaano oo meel walba ma aha wadanka interview ku maraysa meel wax lagu turjumaa jirto waa inaa kusoo turjumtaa oo warqad ku lifaaqsan oo english ah hesha locationka aan ku xareysay hadduu yahay dal aan kaygii ahayn hadhow interviewga dalkaygii baan u aadi mise Soomaaliya hadda interview laguma maro si good marka waxaa sameyn doontaa markaa foomka buuxinaysa interviewga waxaa ku dooran doontaa wadanka hadda aad joogtid locationka aan ku xareysay hadduu yahay dal okay su-aashaas waa ka jawaabay su-aalaha qaar way isku soo dabalaalaabanayaan saaxiib mishaar shahaadooyinka iskoolka iyo jaamacadda tasdiiq wasaaradda arrimaha dibadda may u baahan yihiin iyo waxbarashada haddii federaalka aad wadatid oo wasaaradda waxbarashada ay tahay waa muhiim inaad soo tasdiiqiso walaalkay had iyo aad wayna ku caawinayda shahaado tasdiiqsan iyo mid aan tasdiiqsanayn isku mid maaha oo shahaadadan wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka markhaati kacaysaa inay hubisay oo okay ay tahay gmail hadduu cilad ku imaado confirmation numberka haysto xal ma jira confirmation number haddaa haysato gmail waxba ugama baahnid foomkaaga markaa buuxinaysa gmail cusub baa gashan doontaa insha allah Ethiopia safaaraddeeda haddii aan doorto ma ka fududahay tan Kenya soo far Ethiopia weli hadda Maarsaani dib u shaqo bilowday 2 sano lasoo dhaafay way xirneyd xog ururin ayada lafskeeda ka wadnaa insha allah waan idin la soo wadaagi doonaa dad baa hadda ku qoran bishaan iyo bisha dambe waan arki doonaa insha allah inay ayadana wadadan ay marto ama ay ka fiicnaato laakiin bilowgii hore wixii ka horeeyay Trump Soomaalida ku mari jirtay Ethiopia iyo Kenya ba aad ugu fiicnaayeen waana la siin jiray fiisiyaash saaxiib case numberka ma waxaa ku xiran tahay DV lottery okay DS260 inaad dhaqso buuxiso horta case numberkaaga hadduu uu fog yahay iyo haddii uu dhow yahay foomka DS260 markiiba inaad iska buuxiso way ku fiican tahay waana arrin wanaagsan laguna taliyaday qofka inuu si uu markiiba process u maro foomkiisa inuu markiiba diro laakiin inta badan case order ay ku socdaan ayaga case balba case kale soo ugu horeeyo inkastoo sanadkan hadda oo koronihii wixii yani jahwareerkii safaaradaha qaar oo xiran la arkay cases fog oo ballamo ka hor helaya cases dhow maadaama foomka ay ka hor direen marka taasna waa taas baasaboorka hal month expired date ku xareystay waxba dib mu ii keenayaa haddii baasaboorka uu dhacsanaa hadda baasaboorka arrinkiisa waa laga gudbay yani waa iska caadi arrinka baasaboorka qofka in lagu adkeeyo kii uu ku xareey ahaa ma jiro hadda saaxiib baasaboorka marriage baa igu qoran programkana waxaan ku apply gareeyay single wax dhiba miyaa iga imaanayo ma filaayo wax dhib inuu kaaga imaanayo mana jirto way ay ku dhahaan yani baasaboorkaaga waxaasaa ku qoran baasaboorka marka inkastoo Soomaaliga aan u maleynayo qofka shaqadiisa in lagu qoro hawlihiisa yani wax uu qabto marka ayada ah oo aysan jirin meel single married ay kaga qoran tahay haddana wax dhibaato ma leh okay ma santiin saaxiib yaal su'aalo badan ay u soo dhacayaan okay xamdi waxay dhahday walal ka waran shahaadada dugsi sare waxaan ka qaatay Ethiopia passport Soomaaliya ayaan wataa saameyn ma yeelanaysaa saameynteeda ka waran xamdi aad u maasan tahay waa okay waxbarashada Soomaaliya hayna taa wadato it's good yani markii aan ka hadlayno baasaboorkaaga iyo shahaadadaada inay isla hadaan wax qasaba ma aha tusaale Soomaaliga hadda qofka Soomaaliga ee wadanka wax ku bartay lama dhahayo Soomaaliya tahay maxaa marka waa good qofka meel uu rabo wax ku baran karaa waa okay hadaba ma leh okay interviewga okay Mustafa su'aalo dhowr soo weydiiyay interviewga markaan galo waqti intee la eg baan fiisaha sugayaa waa haday waxayga sax yihiin interviewga maxaa la weydiinayaa su'aal kale mise intii aan ku buuxiyay DS260 aad u mahadsan tahay saaxiib Mustafa waxa kale yiri waxaan ku xareysay university degree
ma la iga rabaa shahaadada dugsiga sare mise jaamacadun baa la iga rabaa. Okay, waa su'aalo muhiim ah. Interviewga markaa gashid haddii mar approve ku siiyaan ay ku dhahaan interviewga yani waa good, warqadii cagaarka ahaydna ay ku siiyaan ay ku dhahaan visa approved, waxaa sugaysaa yani marka ayada baasaboorka inta kaala haraan 3 ilaa 4 markay ugu badato 5 days xataa badanaa ma gaarto, yani ayagaa kuu soo saari doono boostada ama DHL ama Aramex ama qolooyinka ka shaqeeya boostada meesha wadanka aad joogtid ay ku xiran tahay, kuwaasay kuu soo saari doonaan, kuwaasaana ku keeni doono fiisahagii baasaboorkaaga oo fiisahagii la socdo. DS260 su'aalaha marka la fiiriyo DS260 wixii aad ku buuxisay waxaan ahayn ma ku weydiinayaan, xogtii aad ku qortay DS260 kaliya ayay ayagu ku weydiinayaan, wax ka baxsan ma jiraan. Midda kale ah inaad ku xareystay university degree, shahaadada dugsiga sare baa ayaga base u ah. haddii dugsi sare ka helaan it's okay, wixii ka sareeyo waxay sii fududeynaysaa yani interviewgaaga mar walba maadaama aad yani qof wax bartay aad tahay way iska kaasii caawinaysaa, laakiin shuruud asaasi oo ayaga ka rabaan maaha, waana iska caadi. marka aad u mahadsan tahay khiyaarta. su'aalihiin waan ka jawaabi doonaa. ilaa hadda waxaan rajeynayaa 31 daqiiqo ku dhawaadaan ku jirnaa. su'aalaha qaar ay dhaafay raalli ahaada. waxaan ku xareystay oo dhahay Abwaan Liibaan, waxaan ku xareystay passport Ethiopian, laakiin xogteeda waxbarashada waa Soomaaliya iyo meesha aan ku xareystay hadduu ii soo baxo caqabad ku yeelan kartaa. Abwaane aad u mahadsan tahay. maya wax caqabada ma leh, Ethiopian adoo Soomaaliya wax ku baran kartaa sida adoo Soomaaliya iyo Ethiopia wax ku baran kartid. marka qasab kuma ayaga inay ku dhahaan maxaa wadankaas wax ugu baratay adoo wadankaas u dhashay. marka waa okay walaal, caadi, hawshaadana hore u sii wadan kartaa. saaxiib lotariga marka ay noqoto ina xareysto, okay, ina xareysto in la ii xareeyo dadka ma ku kala wanaagsan yihiin qaabka xareynta. haddii aad fahansan tahay ma it's okay waa xareysan kartaa. haddii aadan fahansaneyn qof aad taqaano oo xogtaada si sax ah kugu buuxinaya ama la joogto uu ku xareyn karaa, wax dhiba ma leh. marka aad u mahadsan tahay. magacayga iyo magaca baasaboorka ku qoran isma lahan ee wax saameyn ma igu yeelan kartaa. maalinka interviewga aad tagayso Ibraahimow ama xogtaada haddii aad guuleysato waa ina baasaboorkaaga iyo xogtii lotariga waa in isla yihiin. adoo magac kale guushu yani ay kugu soo baxday magac kale baasaboorka ku qoran ma la tagi kartid, waa khalad aad weyn, waana reject, waa deny ku siinayaan. marka xogtaada waa inay islaahataa. haddii magaca hadda lotariga ku soo baxayo aadan adiga lahayn, baasaboorkaaga waa inuu magacaas wataa iyo xogtaada iyo daatadaada dhan. okay, هون محمد wuxuu dhahay DS260 in lala degdego ma fiicno. sax waaye, yani qofku wuu taxliilin karaa, qof yaqaano inuu la kaashado la buuxiyo, not yani ina dhahdid formkana hore ha loo buuxiyo la yiri ana buuxsanayo. may formku wuxuu u baahan yahay macluumaad ku qoran, waa kuwii interviewga lagu weydiin lahaa, waa wix kugu saabsanaa adiga. marka waa inaad la kaashataa qof yaqaano. saasay tahay waa inaad yani aadan hadana formka wax badan la daahin, oo haddii xogtaada dhan ku dhammaystiran tahay it's okay. tusaale hadda haddii waxaa jirto adoo baasaboorka kaa dhacay inuu kuu soo baxay lotariga, waxaad samaynaysaa baasaboor cusub aad raadsanaysaa, kaaga hore cusbaana kaaga hore dhacayna waa haysanaysaa maadaama asaga ku xareysay. qolada immigration waxaa leedahay baasaboorkan u baahanahay way kuu soo celinayaan markaa baasaboor kale cusboonaysiinaysid. labada baasaboorba waxaa la tegi doontaa safaaradda. marka intaa baasaboorkaas raadinayso waa caadi, foomka wuu kuusii yaali karaa, baasaboorkaaga soo samaysanaysaa, it's good. tusaale waxaa kaloo imaado inta badan familka markay xareeyaan oo kale waxaa dhici karta gabadha inay dhalayso ama fool yani waqtigeedu uu soo dhow yahay, oo tusaale may markii natiijada soo baxda June oo kale ay dhal rabto. haddii marka inta saas way sugi karaan cunugaas uu dhalanayo halkii inta foomka diraan haddana furi lahaayeen oo cunug ay ku dari lahaayeen bil laba way sugi karaan. laakiin mar walba waxaa fiican inaad foomka xilli hore iska dirtid. okay, DS waxaa dhahay Maxamuud wuxuu dhahay DS260 ayaan hore u buuxiyay oo visa F1 ah, tan lotariga markaan buuxinayo xogta tii hore aan geliyay saameyn ma igu yeelanaysaa. saameyn ma kugu yeelanayso yani xogtii hore oo aad qortay mar haddii aadan bedelin nationalityga iyo wixii hore xogtii hore interview ku martay, maadaama interview aan martay oo farahii ay ka qaadeen
marka yani xogtii hore nationalitygaada bedeli karin, dhalashada iyo magaca xilligaa dhalatay, daatada asaasigaada bedeli karin, laakiin waxyaabaha kale waa iska caadi wax saameyna maleh. mar haddii interviewgaaga uu noqdo markay ku ballamiyaan ama foomka su-aal waxaa ku jirta ku dhahayso fiisa hore ma lagu diiday. haddii fiisa hore lagu diiday waa inaa meesha ku cadaysa oodan ka been sheegin maadaama xogtaadii ay hayaan. waxaa kaloo jirto marka interviewga aa maraysid inay ku weydiin doonaan hadda kahor fiisa ma lagu diiday. marka waxyaabaha dadka ka baaraanay ka mid tahay. waxyaabaas marka laga reebo it's okay. Uganda ma qabato howlaha lotteriga sababtoo ah Uganda yani arrimaha kale ee way ku shaqo leedahay, laakiin wixii immigrant visa la xiriira oo lotteriga uu ka mid yahay Kenya u soo diraan. walaal ma arkin, cafwan, su-aalaha aad bay u tiro badan yihiin, waan kuu jawaabi lahaa walaal, iga raalli ahow. qof walbana xaqu u leeyahay in su-aashiisa laga jawaabo. walaal shahaadadeedu wuxuu dhahay shahaadada dugsiga sare Somaliland waaye. It's okay, shahaadada dugsiga sare haddii Somaliland tahay waa good. laakiin hadda bolisiga u degsan Mareykanka waxaa waaye yani Soomaaliya oo dhan inuu isku qabto, yani wixeedii dhan ay u yihiin hal xabo. tusaale safaaradda Nairobi oo kale hata waxaa dhacday sanadkii lasoo dhaafay iyo kambo hadda socdo dadka hadda maraya hawshooda socoto iyo dhalinyarada ka horeysay in ay ku jireen dhalinyarada Somaliland ka wato. xataa ka mid ah yar camuud jaamacadda kasoo baxay oo yar kaloo haddana yani asagana burca jaamacad kaga soo baxay iyo wiilka Hargeysa oo Nairobi ku marayay. waxay la mid ahaayeen shahaadooyinka koonfurta isku si ayay yani ula macaamileen. waxay dhaheen wax Soomaali ka imaanayo dhan waa yani xageena wax ma hubin karno, verification ku sameyn karno. waa safaaradda Nairobi. markay ay timaado Addis Ababa it's okay. birth certificate Puntland yani birth certificate waxaa ka samaysan kartaa dowladda hoose ee deegaanka aad joogto, waa okay. akhyaarta waxay ka codsanaya su-aalihii way dhaafeen, aadayna u badan yihiin. waxaa u maleysaa yani intaan su-aal kale ka jawaabayo su-aalo badan baa gudbayo, markayaan loo arkin in su-aalaha qaar aan iska indhatiraayo hala ii soo wado qor insha allah. baasaboor la-aan xareystay, hadda waan haystaa baasaboor, ma guuleysan kara odha guuleed. haa, nasiibkaagu waxaa weeyaan in sanadkan laga saaray arrintii baasaboorka waajibinaysay, dadkao dhanna isku mid yihiin, waa caadi walaal. dokumentka Soomaaliya oo lama diidan, waxaan arkay warqad ka soo baxay safaaradda, waan ka hadlay walaal, waana safaaradda Kenya. oo mahadsantahay. okay, saaxiib, hal xaraf haddii la qaldo xagga magaca miyaa dhib ka imaan karaa? Cabdinajiib aad oo mahadsantahay. hal xaraf iyo labo may waxba kama imaan karaan walaal, waa caadi. koodhka ayaa iga lumay, ma heli karaa kaygii hore? haa, waa heli kartaa, laakiin xilliga natiijada hala gaaro. anagana waan soo dhignay hadda kahor video kooban oo kaga hadlayno qaabka loo soo celiyo. insha allah mar kalena waan soo dhigi doonaa. forget aad dhihi doontaa, yani waana soo celin kartaa. confirmation numberkaaga waa easy, laakiin waa inaa haysataa xogta aad ku xareyso saxa, magacsaa u qortay, emailkaagii iyo taariikhda dhalashada. intaas haddaa haysato it's okay. wala su-aashii confirmation numberka hadduu iga lumo, waan ka hadlay walaal, waa la soo celin karaa, laakiin waa in natiijada xilligeeda la gaara ka hormay. safaaradda Djibouti ka waran, way shaqeynaysaa iyada, waa caadi. yani inkastoo hadda Soomaaliya ku martay sanadkan weli la sugaayo oo ay ku qoran yihiin bishan dhammaadkeeda April. insha allah way xoogaa iyadana waan soo gudbin doonaa. saadiq waa mahadsan tahay. waxaan ku weydiinaa u dhahay safaaradda inta badan haddaad joogtid xamar optionka ah Djibouti Ethiopia, option waajib ah jiroona inaad dooratid Djiboutina koonfurta uma adeegto aan maqlay. waa mahadsan tahay. Djibouti yani marka ay dhahayso dadka gobolada waqooyi degan iyo Yamaniyiinta iyo Djiboutiyaanka u adeegina markay ku leeyahay waa marka keiskaagii uu ballan helay oo aad rabtid safaarad kale inaad ka wareegtid, laakiin marka hore xareynaysid foomka haddii ayaga aad ku qoratid ma ku diidi karaan. taas waxay ka wadaan ayaga markay saas dhahayaan
optionkaas waxay ka hadlayaan dadka raba inay safaarado kale ayagoo ku qornaa safaaradii kale markay shaqayn waayeen raba inay transfer soo sameeyaan oo keiskooda ay soo wareegsadaan marka waxay ku dhahayaan haddii aadan yemeni ahayn ama dhinacan waqooyiga Soomaaliya aadan kasoo jeedin ma aqbalayna keiskaaga transferka laakiin bilowga hore way ogolyihiin walaal jaamacad waxaan ka dhigtay Somaliland markaas waxaan wax dhiba ma igu keenaysaa sidoo kale waxaan ahay family ayaan ku xariisay walaal meesha rabto wax ka baro muxsin waa caadi meesha rabto wax ka baran kartaa it's okay wax dhiba ma ku keenayso waxaan ahay guulaysta 2021 nasiib darro laakiin markaan apply gareynay waxaan ku buuxiyay serial number been ah laakiin formkii labaad ee DSU 6 ayaan passport samaysay kuna xariistay case numberkaygana ayaa dheer okay hawdo maxay dhahday case numberkayga ayaa dheer bro welina interview la ima balamin haddii laga baahdo passportkii aan ku apply gareeyay ma haysto maxay la gudboon ayaan sameeyaa mahsanid hawdo ma santahay walaal arrintii passportka meesha way ka baxday qofka hadduu number qaldan ama qaxooti ama passport la'aan ku xareeyay hadda waa caadi oo hadda dad waxaa jira interviewga maray bilii hadda wixii ka dambeeyay bishii labaad oo approve la siiyay passport la'aan ahaa waa caadi marka haddii aad balan hesho it's good ma ku dhihi doonaan wixii hore iyo aawo maadaama sharci maxkamad lagu laalay la joojiyay arrimihii passportka in qofka wax laga weydiiyay passportka hore ku xareeyay anigu laakiin qofka yacni haysta heli kara passportkii uu ku xareeyay haysta waxaan kula talinayaa inuu sii qaato iska qaato maadaama sharci ayadoo haddana wax walbo yacni laga fogaado oo khalad ah laakiin arrin dhibaato keenaysa maaha hadda arrintii passportka waa la saaray shahaado waxbarasho ma ku xiraan shahaado waxbarasho high school qasab ahaa safaaradda Itoobiya ka waran hadda way shaqo bilowday waa caadi walaal sihaan waxay dhahdeen markii la doorto kadib miyaa qoranayaa caruurta iyo xaajiga sihaan may haddii caruur ku joogaan October marka xariinaysa waajib kugu tahay inaa qoratid haddii aad marka hadda inta natiijada sugayso guursatayna it's okay xaajiga bas qoran kartaa laakiin ilmo waaweyn ma ku dari kartid lama ogola ilmo waaweyn in meesha la tago October aan lagu darin xariinta hore ilmo aadan ku darin haddaad meesha la tagto waa automatic disqualified hore ka diidayaan mana ogola waxyaabaha beenta ah qofka inuu guurkiisa ka been sheego marka waa sida walaal main address ka meesha province state ayaa waxaan okay sorry way dhaafay dib aan u baaro su'aashaas igu soo celiyay waxaa dhahay province address yani province state kuwa gobolka aad joogto haddii aad gelisay magaalada it's okay wax dhib ku keenayso caadi yani qaybtaas muhiimad gaar ah ma leh qofku wuxuu rabaa geli wadanka aad joogto bas muhiim inaad qorto walaal si fiican uma fahmin walaal jawaabtii sidee effect ma u yeelan kartaa shahaadada Somaliland walaal maya shahaadooyinka Soomaaliland waxay la mid yihiin shahaadooyinka kale ama Soomaali qaybeeda laga qaato ama meel kale laga qaato caadi meesha rabtaan kaga mari kartaa shahaadada adoo passport Soomaali wada qasab ma inay ku qoran tahay Somaliland ku qoran muhiim ah muhiimadu waa inaad dugsi sare ka soo baxday oo aad wadato shahaado la aqoonsan jaamacadda wadato okay aydan si fiican okay passport la'aan aan xariisay laakiin dhibka jira waa inaan buuxiyo 3 option mid kamid ah 3 option waxay kamid tahay qaxootigii ama stateless inaad tahay ama optionada kale ah waiver inaad haysatid wax walba hadda way isla baxeen mana ku weydiin doonaan insha Allah passport la'aanta ku xareeyay awal waa aad loo dhibi jiray waana loo diidi jiray sanadkii hore iyo kii ka sii horeeyay laakiin hadda amar maxkamadeed ay ku soo saareen qofkii passport inaan lagu xujeen marka hore xareenayo had sanadka soo socdana ma filayo inuu ku jiri doono applicationka passportka optionka ahaa awal 2019 wixii ka horeeyay passport lagu xareen jirin si caadi qofka intuu u xareeyo markuu guulaysto kadib passport raadsan jiray hadda sidii bay ku soo celiyeen maadaama waxaan Trump awal buu u keenay qolinka hadda yimid way ka saareen arrintii passportka waajibinaysay qofkii passport la'aan hadda ku xareeyay haddii uu soo baxo wuxuu la mid yahay dadkaas kale ma sii dabagali doonaan wixii hore uu doortay iyo wixii uu ku xareeyay marka waa okay caadi weeyaan case number maxaa lagu kala duwan yahay case numberka qofna uu ka horeeya qof uu ka dambeeya case number walba case uu ka horeeyo uu koow xageeda ka xigo waa uu fiican yahay uu ka sii ballanta inuu helo kaga sii dhow yahay safaaradda ugu fiican waa mid ka fiican ma jirto walaal safaaradda dhan hal sharci ah oo qoran loo tirigna shuruudihiisa waa la wada yaqaanaa goorma lagu dhawaaqa resultiga 7 May insha Allah walaal qofka sanadkan gudihiisa 2 jeer xareystay isagoo og 2 qof u kala xareeyay ka waran ma ka gubanaya mise haddii xogta isku mid ay ahayd oo passport numberkaaga mar kale lagu xareeyay
wix walba oo adiga aad leedahay dhalashadii everything markii inta la xareeyay marka isla ayada lagu xareeyay taas waa dhibaato walaal waana yani ayaga way ka digaan in qofka laba jeer wax xareeyo. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Xamse Cilmi, shahaadada 12aad ayaan ku buuxiyey, wax xirfadana ma leh. Haddiiba high school haysato good to go, wax dhib ah ma lagaaga baahno, yani wax shuruuda ma lagaaga baahno kale waa caadi walaal 12aadkaasay kaa rabaan. Case number miyaa ku kala duwanaa interviewga? haa, case number order wax la jiro oo qof walba qofku case numberkiisa kasii horeeyo yani kasii jaanis fiican yahay. Case number hore haddaa hesho good, case-kaaga hadduu 60 kun 70 kun yahay waxaa laga yaabaa sometimes adoo ballan helin inuu timeka dhamaado raggi kaloo soo cusub loo shaqo bilaabo. Marka case numberka waa muhiim. Documentska Soomaaliya sida baasaboorka, shahaadada dugsiga sare iyo dhalashada ma la ogol yahay? Baasaboorka marka laga reebo inta kale waa la ogol yahay, laakiin baasaboorka Somaliland may walaal. ilaa hadda yani Soomaaliya baasaboorkeeda unbay ayaga u ogol yihiin inuu qof ku mari karo. Kaar qaxooti ayaan leeyahay, processna waa ii socdaa, miyaa la iga weydiinayaa? Isma saameynayaan case-kaagaas iyo yani lotteriga shaqo iskuma leh. Birth certificate Puntland waan ka jawaabay walaal, waa caadi. Goormaa la soo saaraya jawaabaha lotteriga? waan ka jawaabay iyadana waa 7 May. haddaan shahaado jaamacadeed ii soo baxdo ma geyn karaa? markii horena aan iskool ku xareeyay. haa, okay waay, foomka dambaa ku qoraysaa waana lagu ogolay walaal, waa caadi. su'aalaha qaar waa muhiim inaan ka jawaabana waa muhiim. walaalow ilmaan dhalay ma layga reebayaa ilmaha walaal Nimco, haddii odagay adiga si sax ah u xareysateen oo odaga aad ku dartay bilowgii hore oo aad applicationka uu kugula jiray inaad guursatay oo ilmo gadaal kaaga dhashaan, waa waadix, waa arrin iska cad, waa lagu ogolaya ilmahaaga inaad wadatid oo ku dartid foomka, waana caadi. waxa la diidaa waxaa waaye ilmo waaweyn oo ka hor dhashay Octobertii la xareynayo ka hor dhashay oo aadan foomka ku darin. marka waxaa lagu ogolayay inaad foomka dib kaga dari karto waa cunug kuu dhashay markaad xareysay kadib iyo guur aad gashay oo sax ah markaa xareysay kadib. labadaas wixii ka baxsan dad waaweyn inaad dib kaga darto ma ogolo. aad baa mahadsantahay. wuxuu dhahay Maxamed Dhaqane Xalane, waxaan ahay DV Lottery winner 22 hambalyo, waxaan helay 2NL maasha Allah. waa iyadana my interview location waa Djibouti, marka waxaan kaa rabaa inaad igu caawisid inaad WhatsApp group inoo sameyso dhammaan wixii Soomaali ah oo ka dhigta interview location Djibouti si aan isula socono. Maxamed Dhaqane Xalane saaxiibada u mahadsantahay, interview location-kaaga iyo inaad ballan heshin oo kugu hambalyeynaya. saaxiib WhatsApp group wuu jiraa oo DV22 winner teamkaaga ah, I hope inaad ku jirtid. marka taa wixii ka baxsan oo yani in haddana teamka Djibouti gooni loo sii sameeyo waxaan u maleynayaa inaysan wax hadda muhiimad weyn lahayn. mar haddii aad ku jirtid Somali DV Lottery oo winnerska ah oo WhatsApp-kaas aad member ka tahay, wixii xoogaa halkaas lagu kala qaataa, dadka guuleystay xogtooda halkaasay taallaa. haddii aad groupkaas ku jirin insha Allah qaybta messengerka igala soo hadal ama fariin gaar ii soo dir, anaa kugu dari doono. waa mahadsantahay. intiina kale hadda natiijada sugaysa markaad guuleysataan WhatsApp group gooni ah iyo Telegram wixii aad u baahtaanba waan idiin sameyn doonaa si aan hawshiina si private ama gooni idinkugu update gareyno mar walbo. warqadda dhalashada iyo dambi la'aanta xamar baa laga soo qaadanaya mise gobolada waa caadi? aad baa u mahadsantahay walaalkay Daa'uud. yani haddii xamar joogto xamar waa ka qaadan kartaa, haddaad Somaliland joogto Somaliland ka qaado, Puntland sidoo kale. hadda midda federaalka dadka kuma wada qasbana maadaama hubinta documentska Soomaaliya oo dhan ayaga ay dib u arkaan, yani xoogaa hubinta iska dhib tahay, haddana qof walba deegaankiisa ka warqabo oo aad ula socdo, qof walba degmadiisa hoose ka qaadan kara. okay, shahaadadii baasaboorkayga waa kala magac, marka waxaad ahay shahaado ma haysto. xamdi aad u mahadsantahay, shahaadada waa inay la magac ahaataa baasaboorkaaga, waana qasab arrinkaas. haddii ay kaa qaldan tahay kasoo bedel iskoolkaaga. birth certificate dowladda hoose ee xamar waan ka qaadana mise nootaayo ayaan ka samaysanaya? dowladda hoose ee xamar ka qaadanaysa haddaad Muqdisho joogtid. taariikhda dhalashada wuxuu dhahay shahaadada dugsi sare maanka maarmayn waayo college ayaan haystaa, laakiin jaamacad baan ka baxay, university degree baan ku xareystay. markaa lottery joogto shahaadada dugsiga sare marna kama maarmaysid, waa base, waa meesha ugu horeysa ayaga fiirinayaan. they don't care jaamacadda wadato, haddaa PhD tahay xataa shahaadada dugsiga sare ugu muhiimsan. taas markay arkaan wixii ka sarreeya oo kusii caawinaysa. saaxiib shahaadada dhalashada steepka laga rabo ii sheeg xog ku saabsan.
shahaadada waa shahaado waxbarasho inay ahaato. shahaadada dhalashada yani stepeska laga rabo ma jiro, birth certificate waaye. haddaa Soomaali xamar joogto midaan gobolka Banaadir laga soo qaatay baasaboorka lagu samaystaa soo qaadanaysaa laga sameeyo dowladda hoose ee xamar ay sameyso Shangani laga soo qaato. wixii taas ka baxsan yani shahaadada taas unba official ah qofka Muqdisho joogo, qofka kalena deegaankiisa shahaadada dhalashada laga qaato. markaada u maasan tahay. baasaboor iyo shahaadada magac hore ku kala duwan yihiin, dib ma ii keeni karaa, maxaa sameynaa, shahaadada miyaan bedeli karaa? walaal hibaaq, shahaadadaada waa inaad soo bedeshaa oo aad magaca soo saxdaa, waayo baasaboorkii shahaadada haddii laba magac kale yihiin waxay ka shakinayaan shahaadadan qof kale uu leeyahay, ma fahamti? marka sidaas samee walaal. walaal xali wuxuu dhahay hadaan shahaado jaamacad haysta dugsi sare ma la iga rabaa? walaal shahaadada haddaa haysatid jaamacada dugsi sare waa haysataa already. marka ayaga way fiirinayaan dugsiga saraana base ah, kaas markay ka hubiyaan wixii kale kasii sare way ku caawinayaan. dhowr jeerna waa ka jawaab su-aashaas. taariikhda dhalashada iyo midda baasaboorka waa inay islahaadaan walaal, waana qasab taas. xogta adaa iskale, shahaadada dhalashada soo bedel. maxkamadda warqadda laga soo qaatay maxaa waaye? sometimes safaaradaha wadanka qaar waxay weydiiyaan waxa la dhaho affidavit of support oo documentska waxbarashada documentska dhalashada Soomaaliya maadaama aad loo aqoonsaneen, waxay dhahaan ha lagu soo lifaaqo dhaar laba qof oo nootaayo kasoo hordhaartay oo ay kusoo shaabadaysay nootaayo. wax noocaas ay ku xiraan safaaradaha qaar waaye, qaarna way ka socdaan oo waxaas ma weydiiyaan, laakiin inaad iska samaysato way fiican tahay. waxaasoo dhan waan idin soo update garanaynaa iyadana. cabdicasiis wuxuu dhahay anigu ku xariistay inaan haysto shahaado jaamacadeed, hadhow markaan DSO-ga buuxinayo qasab miya inaan shahaadada secondary-ga soo gudbiyo? haa, foomka waa inaad ku qortaa waxbarashada iyo wax walba haysatid. sawirkan aan 2020 ku xareeyay haddaan 2021 ku xareysto wax dhibaato ah ma leedahay? cabdinaasir saaxiib waa mahadsan tahay. sawirka inaad bedesho way fiicnayd oo aad update garaysid mar haddaa isticmaashay sanad hore, haddana waa iska mashiin. I hope insha Allah inaad guuleysan doonto, laakiin shuruudaha ka mid maaha sanadka hore sawir lagu xiray in lagu celiyo. safaaradda ugu fiican waa mid hore aan aga hadlay. safaaradaha oo dhan waa isku instruction, inkastoo hadda Soomaalida caqabad ay ku tahay safaaradda Nairobi haddii la iskaga wareegsan karo ay fiican tahay, oo in la iskaga wareegsadana aan ku talinayno. safaaradaha adduunka oo dhan waa isku sharci. DSO-ga baasaboor ma qasabaa inaan haysto? haddaan hore baasaboor la-aan ugu xareey waa qasab walaalahaa. nationalitygaagu Soomaali weeye, halkaasaad dooratay, waa inaad baasaboor Soomaali la imaada ama wadankii aad tiri waan u dhashay markii meesha dhalashada aad dooranaysay. baasaboorka wuxuu muhiim u yahay travel document waaye. haddaa safaaradda waxa u tagaysa waa in fiisa lagu siiyo. haddaad baasaboor wadan maxay fiisa kuu saarayaan? marka waa muhiim baasaboorka. arrinka okay walaal waxaan xareystay sanadkii ugu dambeeyay, markaan iminka isdhaho serial numberka wuu khaldan yahay ayuu dhahayaa uuna saxan yahay. maxaa ka siya? waa mahadsan tahay walaal cabdilaahi abukar saaxiib. lama gaarin 7 May wixii ka horeeya wuxuu ku dhihi doonaa khalad weeye serial numberkaaga ama confirmation numberkaaga, marka waa in natiijada la gaaraa. ha la gaaro insha Allah. saaxiib su'aal, for example saacidi waxay dhahday for example aniga waan xareystay as a family, xaaskaygana iyadoo gooni ayay u xareysatay. labadeennaba haddaan guuleysano mid haddaan isdhaafno dhibka ma keeni karaa? aada u mahadsan tahay. labadiina inaad guuleystaan idiin rajeynaya insha Allah. labadiina kii guuleysta waxaa fiirinaysaan case numberka hore, mar walba kii case number fiican haysto yaad foomkiisa buuxinaysaan. labadaba haddaa buuxisaan it's okay, oo aad laba dheed oo kala duwan oo laba taariikh oo kala duwan ay idiin soo saaraan interview appointment. haddii lacala kan qofkan shuruudaha u waafaq waayo si qofka kale interviewgiisa loo maray, waana wax dhiba hor dhaco marar badan sanadkanba dhacay. marka labada foom inaad buuxisaan xaqa u leedihiin. haddii foom case aad u fog mid helo midna case dhow, midka case-ka dhow qaadan doontaa. shahaadada dhalashada waraaqo kale oo lagu lifaaqayo ma jiraan oo caddaynaya isla dhalashada? cabdikhaaliq waa mahadsan tahay. haa, waa safaaradaha qaar sida Nairobi oo kale hadda waxay codsataa wax la dhaho affidavit of birth, warqadda dhalashada Soomaaliya. ma ku kalsoonin fadlan waxaa noo soo raacaysa ay ku leeyihiin laba qof oo dhaar ah, yani nootaayoyinka markaad tagto marka way yaqaanaan warqadda dhalashada dhaarta aad leedahay ama affidavit of birth. warqadaas waxaa ku qoran laba qof oo saxiixayo oo dhahayo qofkan ku dhalinaya anaga goobjoog ahayn, yani hebel bala baasaboorna markaas wato Soomaali ah, waxaan marqaati ka nahay inuu yani Soomaalinimadiisa ay sax tahay, wax noocaasa.
marka waa wax iska yani ay iska codsan safaaradaha qaar qofku markuu guuleystana ay fiican tahay inuu samaysto saaxiib su'aal for example anigana waan xareystay taas waan ka jawaabay okay waxaan dhan ka wada jawaabay meeqa kharash ku baxaayo waa su'aal muhiim ah juweeriya aad u maadsan tahay kharashaadka ku baxaayo lottery-ga waa iska kooban yihiin anaga Soomaalidina dhibka ugu badan oo marna waxa waaye maadaama safaaradii local aysan ahayn oo la safrayo qofka wadankiisa aan ahayn oo interview aadayo lacagaha tikitka wadankaas uu ku tagayo iyo hotelka ama meelaha uu dagayo waxaas markii laga reebo safaaradda waxa ugu horeeyo barnaamijkan lottery-ga lacaga bixiso ama kharash laga qaado maalinka safaaradda interview-ga marayso interview-gaas عفواً aan dhaho waxa ka horeeya interview intaada mar caafimaad inaad soo martid kharashaadka caafimaadka marka waa 270 ilaa 400 adi 300 marmar iska noqotaa waa iska koobeen kama badna $400 interviewga marka tagtana waxa jira lacag ayadana laga qaado doona visa interview la dhaho oo visa lacagtiisa ah oo $330 ah wixii dhan marka caafimaadka ayada la isku keeno oo iska 700 iyo tikitka qofka markii visa hadii siiyaan oo Mareykanku aadi doona ayadana 900 800 ilaa 1000 jab intaas isku imaanayso waxa kaaga baxay laakiin waxa anaga inoo dheerday maadaama qofka ama xamar ka soo tago Addis Ababa taga ama Nairobi taga ama Djibouti taga qarashaadkii wadankaas ku tagi lahayd waxyaabahaas aad u mahadsantiin walaal shahaadada dawladda dugsiga sare saameyn ma leedahay hadii aan haysan shahaadada federaalka kuma qasbanid sida qofku markuu Hargeysa ka imaado uu warto midaas xagga ah shuruudaha kamid ma aha balse hadiiba aad heli karto koonfurtaan meelaan kale wax ku bartay midda dawladda xagga hubinta oo kaga fiican tahay kuwan kale oo waxay leedahay code iyo system online oo laga baaro arrimaha dibadda Soomaaliya oo soo marsiisay wasaaradda waxbarashada soo shaabadeysay marka xoogaa way ku fiican tahay hadii aad awoodi karto laakiin qofka ama Puntland ama Somaliland joogo kuma qasbana inuu yani hadii uusan awoodi karin uu dhaho federaalka bisal iska rabaa صاحبكين هدي أنك حريص interview ما كبدلن كراه ودن كلمة وبدلن كراه ها ودن كعربته الدنيا هذا option كاسكله مركا فهم كحرين يساب بدلن كرتاه وردتك وشة كنتم بقالك بيجو سكول سر قاعدين دتك بقالك بكنتم يجو سكول سر قارين بي يعني إسك حريص تعمل كودا مركا ومهم رفقينه شروطه ودك سنة وحن وكصوبي كلام باسبوركيga magac kale oo lagu dacwoonayo way really namekeygana maaha marka buuxinayo waxaan doortay step ka ah inaan dhameeyay laakiin aan okay laakiin shahaado haysan hadhow waa laga rabaa dawlad shahaado sax ah haysatid haduu barnaamijkan ku soo baxo wax walba u sameyn kartaa programkan waa inaad shahaado soo saxdaa lama yeelay marka shahaado la'aan lamana yeelay magacii baasaboor shahaadada kala duwan yihiin Faisal Bishar saaxib Dar es Salaam ka waran ma laga dhigan karaa aad u mahadsan tahay Dar es Salaam Tanzania waxay ku xiran tahay inay shaqeynayso marka website-kooda gal fiiri levelka ay joogaan travel advisor waxa la jiro oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay safaaradaha dul dhigtay sidoo pandemic corona u imaaday travel advisory-ga safaaradaha qaar level 4 يعني سفارة مركز هذه فرنتها هاي أو ليفل كذا 2 أما 1 إسكي هاي شقة ذا إيميل وأدري كرتا إني دي في برنامج أقبليان وحيوصل هذا سوق قاتيد وأكيد كرتا مهمة دوا سفارة شغالة سنة دورتي شهادة الأشهاد ولا الحمر إنت أنتجو مهم يا شهادة الأشهاد هدي الحمر كم قنتها هاي أما ودنك بنانك ساجوكت ماشي جوكتك سميسن كرتا أما سفارتها كتالو هذا قبل هذا كله سومالي جوكتو sida Soomaaliland oo kale meesha dawladda hoose ee meesha aad joogto oo ka samaysan kartaa walaal xamar kuma qasbanid baasaboorkii hore aan ku xareystay ma bedeli karaa walaal haddii xogtu aysan isbedelaynin baasaboorka oo dhacay ama uu ka noqday waa bedeli kartaa ha laakiin xogta aad ku xareysay waa inuu ku soo baxaa lottery-ga xogta aad ku xareysay waa inuu baasaboorka ku soo baxaa saaxiib waxaad 10 noogu soo duubtaa DS60 insha Allah walaal waan sameeynaa kaas okay shahaadada level gaar miyay ogol yihiin ayaga imtixaan ma qaadayaan waxbarashada ma aha waxay ku siinayaan kuma dhahay marka qofkan boqolkiiba intaas waa inuu haystaa dhibca ayaga high school ba u qoran laakiin haddana qofka inuu F yahay oo failed yahay ma rabaan qofka qof caadi ah dugsi sare ka soo baxay inuu yahay beerman Soomaaliya anuu joogo ma xariisan karaa samadoon yaraha saaxiib waa xariisan kartaa Soomaaliya adoo joogo waa caadi maraan guuleysto isla markiiba waxaan aadayaa safaaradda oo markaan tagaya dalka Soomaaliya
saaxiib mise howlo kale ayaa jiro mise kuwo kale ayaan buuxinaya markaa sida saaxiib may markaa guulaysato foomkii aan kasoo hadalnay DS260 la dhahaa buuxin doontaa foomkaas markaa buuxisay wixii ka dambeeyana insha allah waxaa la socon doontaa meel waxaa jir lagala socdo interviewgaaga intuu soo dhow yahay iyo inuusan soo dhoweyn anagana waan samayn doonaa meelo gaar ah oo dadka guulaystayaasha aan isugu geyn doono insha allah oo WhatsApp group ama howlo kale halkaas lagu update karin doono marka hore kama aadaysid December ayuu dhacay baasaboorkayga dib ma ii keeni karaa maya caadi weeyaan markaa guulaysato baasaboor cusub samayso kaasna foomka ku buuxi baasaboorkaaga xataa walaalayaal hadduu dhici rabo September soo socoto ama December ama sanadka yacni dambe bilowgiisa waxaa ku fiican baasaboor cusub inta samaysatid inaa ku buuxisid sababtoo ah interviewgaaga maadaama dadka ugu horreeya October ay mari doonaan haddii baasaboorkaaga oo 6 bil ka yar interview lagu balamiyo ma ogolaanaysa safaaradda waxay ku dhahayaan baasaboor cusub la imo sababtoo 6 bil ka yar lama saaro fiisa documentskaaga oo dhan in affidavit ku lifaaqdo ma fiican tahay qasab ma aha kuma qasbanid waxyaabahaas oo dhan hada yani ayaga waxay ka codsanayaan waa waxbarashadaas affidavit yani waxaan dhahay dhalashada in affidavit soo raacisid imtixaan ma qaadayaan oo dugsiga sare ku xiran maya walaal ma qaadayaan waa Abdulzakariya saaxiib Abu Zakariya saaxiib waa caadi grade it's okay high school un bay rabaan ayaga haddana aan failed ahayn oo qofkii ma arkin oo uusan ahayn qof maadooyin badan ku dhacay oo yani iska taqaana normally qof dugsi sare ka baxay oo waxa uu watana ka run sheegay okay midaan maanan xareysanne okay aadan xirso xudha midaan ma xareysan sanadka hadda ee midda xigta goorma soo noqonaya October insha Allah walaal bish tobnaad ka waran qofkii dalka leh ku maqan shahaadada dugsiga sare oo postgraduate process qofkaas wadan kale uu jiro wadankaas uu ku mari doonaa waxbarashadu wato it's okay haddii waxbarashada Soomaaliya aan ahayn aad wadato iyo chance fiican inaad safaaradda Soomaaliya ka sii wadan karto shahaadada dhalashada halka aan joogo Ethiopia waxaa lagu qoraa Soomaali iyo luqadda dalka ee Amhariga wada socda ka waran English maaha jire waa mahadsantahay saaxiib safaaradda haddii aad yani warqadda dhalashada haddii af Soomaali ama xabashi ku qoran tahay ama Amhariga ay ku qoran tahay af Soomaali waxaa sameynaysaa iyo cid walba Carabi ugu qoran tahay ama wax kale waxaa jira magaalada aad joogto translators aad joogo meel xarumo waxaa jiro official dawladda u diiwaan gashan yani shati haysta inay wax turjumaan kuwaas u geynaysa kuwaas ku soo turjumay tusaale jigjiga hadaa joogto kale hadda way ku yaalaa oo yani waxaa jiro qolooyin turjumo shahaadooyinka iyo wax walba af xabashi oo English loogu baahan yahay arsaba hadaa joogto kuwa kale oo jiro ayagana official meel marka waxaa jiro shati u haysta inay wax turjumaan kuwaas marka ku turjumayo English warqad ay kugu lifaaqayaan taadi originalkeed adoo wato warqadaas ayaga ay ku shaabadayaan qaadanaysa marka waa caadi turjumaankaas raacin doonta si fiican ayaan luqadda English ugu hadlaa miyay caawinaysaa still single saaxibaad oo maasantahay way ku caawinaysaa luqadda English sababtoo waxay ku sahlaysaa qofka ku wareysanaya ee consular officer-ka inaad toos la hadashid intii qofku ku turjumi lahaa markii taa laga reebo wax oo kale oo credit ay ku siinayso male qofkan oo English ku hadlaya so waa inaan siinaa fiisihiisa ma jiro still shuruudihii qofka aan English aqoonin yaa la mid tahay laakiin tan adiga waxa way communication direct communication la sameyn kartaa qofkan marka taas un baa adiga ku sii caawinaysa maahine shuruudihii waa halkooda oo qofkan English aqoonin waxyaabo points dheeraad ah oo dheer tahay ma jiri doon safaaradda gudaheeda safaaradda Djibouti translate soo lama ogola haa waa la ogol yahay ayada Djiboutidaas Ethiopia iyo Kenya mid ku maraysidba it's okay markaan interviewga ku marayo luqadda haddaan active ku ahayn dib ma igu keenaysaa may walaal qasab kuma aha inaan luqadda si active ugu hadli kartid ama waa ku tahay fluent processka affidavit-ka ma noo sharaxi kartaa saaxiib affidavit-ka waxaa la dhahaa warqad lagu lifaaqo dhaar ah affidavit horta daan maqasho luqadda Englishka waa oath ama dhaar wax loo yaqaano warqad hadda ku soo buuxinayo qofka xagga jooga sponsorka waxaa la dhahaa affidavit of support form way midaan ayaga codsanayna waa affidavit oo qofka wuxuu ka hor dhaaranayaa nootayaha ama maxkamadda wuxuu leeyahay aniga hebel nootayahaasna dee maxkamadu ka soo saxiixi doonaa warqadda kasoo shaabadaynaya anoo hebel waxaan caddaynaya qofkaas inaan aqaano oo ay yihiin yani ilaa waagu dhalinayay qofkaas aan ka marqaati ahay wax noocaas waa uun nooc ma anaga nagula yara dhibaayo maadaama documentskeena aysan aqoonsanayn
weeye wax weyn ma aha. Marka nootayada u tagtana affidavit-ka waa weydiinaysaa ayaga ku way fahansan yihiin. Waxaan u baahanahay leedahay warqadda dhalashada, dhaarta la raaciyo ayaan u baahanahay. waxaasoo dhanna page-keena kaga hadlaynaa insha Allah, warbixino diyaarsan step by step, documents laga rabo safaaradaha aan hadda qiimeynta ku wadnay, kuwa noo soo baxo inay laga wareegsado kuwa ugu fiican, yani waxaasoo dhan insha Allah waa idin la soo wadaagaynaa. inkastoo safaaraduhu isku wada mid yihiin shuruudaha lootriga isku si ay u dabaqaan. shahaadada federaalka Soomaaliya it's okay, waa shahaado dugsi sare guud ah, tixraac leh, fiican, waa aad ay u fiican tahay. walaal soo baxay lootriga may walaal wuxuu soo bixi doonaa insha Allah bisha soo socota ee May markay tahay 7. saxab hadduu isoo baxo qof kale xagga jooga ma la iga baahan yahay? walaal waxaa lagaga baahan yahay qof la yiraahdo baalkigi sponsor oo kusoo dhaweeyo. qofkaas muhiim ah inuu lacag iyo wax kugu bixiyo, inuu qarash kugu siiyo, laakiin waa qof la rabo inuu kusoo dhaweeyo oo host ku ah meesha sharciga kugu soo hagaajin lahaa. yani green card-kaaga unbay ka rabaan bas. sawirka aan ku xariistay wax yar sunniyahayga xijaabka u dhow ma laga yaabaa inuu caqabad igu noqdo? muna walaal maya insha Allah, haddii shuruudihii intooda kale aad soo waafajisay oo backgroundkii uu wide yahay, kaamirada aad toos u eegaysid, shadow ama hoos uusan ku jirin, qoloc kale uusan lahayn, good to go. wax kale oo aad ka walwashaa ma leh, intaas kalena waa caadi. sawirka dhagaa la soo baneeyaa iyo waxyaabahan kale waa iska shaad, wax sax ma aha. full face inkastoo ay rabaan oo ayaga ay dhahaan yani full face waa inuu hado qofka wareega wajiga dhan waa in si fiican u muuqdaa, laakiin waa shuruud guud oo fiisayaasha Mareykanka sida kuwa kaleba ah marka la codsanayo ah. laakiin selectigan hore maadaama computer randomly uu yahay, computer dadka uu soo xulaayo, uma baahnid inaad ka walwashid xijaabka sunniyaha kusoo dhow. Kenya ka waran? Kenya ilaa hadda xoogaa Soomaalidu sibay ugu adkeynaysaa haddaysan wax isbedelin dhawaanahan, laakiin insha Allah sida hore ahaan jirtay inay kusoo noqotaan rajeynaya. okay, dugsi dhexe ma la iga baahan yahay bowe? dugsi dhexe may Cabdinaasir may dugsi dhexe qasab ma walaal, ma ku qasbana dugsi dhexe in aan la imaadid. kaliya waxaa laga rabaa dugsi sare base ah. baasaboor la'aan haddaa xareysay Cabdullaahi, sanadkan waa sanadkaagii insha Allah guul. waxa waaye waa la joojiyay arrinta baasaboorka, qasabna kuguma aha inaa baasaboorkii la'aantii aad ku xareysay shuruudahoodii lagu reebo. waxaan joogaa Turkiga, waxaan xareystay Sacuudiga, hadhow ama ay dhahaan Sacuudiga tag maya walaal, qasab maaha. Turkiga markaa foomka buuxinaysa waxaa lagu dhihi doonaa Turkiga meesha rabtid adaa dooran kartid. haddaan baasaboor Somaliland ku xareystay hadhow ma bedeli karaa maadaama la aqoonsanayn? walaal hadda baasaboor Soomaali haddii uu kusoo baxo waa inaad baasaboor Soomaali samaysataa, maadaama shuruudihii baasaboorka waajibinayaan meesha ay ka baxeen, inaad la mid noqoto qof aan baasaboor ku xareynin oo kale, oo aad hadhow baasaboor Soomaaliga soo qaadid, maadaama Soomaali inaad tahay aad dooratay. marka arrin saameyn weyn kugu yeeli doonto ma insha Allah, guulaan ku rajeynaya. goormay soo baxaysaa? 7 May dowladeed insha Allah. kays waqtigiisii dhamaaday, wax kale oo raja ah ma leeyahay? Cabdi maya walaal, fiscal yearkaas hadduu dhamaado way xiraan, xogtaasna waa isku laabaan, rajo badan oo dambe ma jirto, maba yani way uu kusoo laaban karo ma jirto. inkastoo looyaro ku hadda last 21kii iyo ay jiraan looyaro isku howlayo dhahay waxbaan qabanaynaa iyo laakiin nothing oo badan oo ay sameyn karaan ayagana. USA oo jooga laakiin kala magac, okay, aabo oo jooga USA laakiin kala magac aan nahay, maxaa xal u ah? adiga barnaamijkan aabaha inaad sheegato qasab ma kuga aha, hawshaada magacaaga caadiga ku sii wadanaysaa, it's good. marka hadduu host ama sponsor ku noqonayo waa caadi, inaad qof iska qaraabada oo kale u yahay baa ka dhigaysaa. muhiim ah inaad dhahdo waalidka, laakiin haddii fraud la idinku qabto waalidkii waa dhahdaa isna magac kale ku joogo, isaga lafkiisa ku ahaanaysaa dhibaato. marka waa saas walaal. DS2 hormiya case numberka ogaan karaa si kadib. DS2 lagama dhex ogaado walaal, DS2 waa form, laakiin waxaa ogaanaysaa maalinka habeenka natiijada ay soo baxdo. haddii aad guulaysato insha Allah waa ogaan kartaa natiijada xilligay joogto, yani case numberkaaga meesha kaga qoran warqadda waa heli kartaa. Kenya waan ka soo hadlay walaal, haddii aad ka wareegsan karto ka wareegso, cid walba oo isaga wareegsan karta Kenya waan ku talin lahaa sanadkan. haddii aan Mareykanka qof iga aqoon ka waran, waa inaad bank statement haysataa
okay waxay isuga yes okay waa mahadsantihiin akhyaaray haddii marka aadan haysan qof xagga jooga waa inaa hoostii aadan heli karin waa inaa heli kartaa bank statement fiican oo lacag fiican ay ku jirto ama raadi waa heli kartaa. Soomaalidoo dhan dad badanaa xagga jiro, qofka kuma qasbana marka inuu ehelkaaga yahay ama waalidkaa yahay ama walaalkaa yahay, qof asxaabtaada ama ehelkaaga ama qof lagu sii baro noqon karaa. waraaqda dhalashada haa Jibriil meeshaa joogta ka qaadan kartaa, qasab maaha yani inaa meesha ama Muqdisho soo aadid ama wadankii aad kasoo safartid. Safaaradda haddii shaqeynayso waa caadi, waa ka qaadan kartaa. Haddii gobol kale aad joogtid, meesha aad joogtid dowladda hoose ee warqadaha ay bixisay ka mid tahay dhalashada waana ka qaadan kartaa. waqtiga ugu horeysa oon xareysan karo waa October aa xareyn kartaa insha Allah markii la gaaro. single haddaan ku xareysay oo guursatay laakiin guurkaaga uu sax yahay waa caadi, laakiin waxaa la diidayaa guurka fraudka ama beenta ah ee fiisa lagu raadinayo. su-aalo kale dhowrayna way idinka weydiin doonaan iyo cadeymo kale inaad keentaan oo guurkiina ku saabsan. haddaa Yurub joogtid oo Mareykanka aad rabtid yani waa inaad lootrigaan u naxariisid. annaga wadada kaliya yani waxyaabahan ka hadalna lootrigaan baa ka mid ah, laakiin ways kale ama wadooyin kale way jiri karaan, balse howlahaas annaka aada ugama hadalno. aada u mahadsan tahay. sawirka walaal haddii aad iPhone ku qaaday ama waxyaabo yar laga bedelay oo la jaray ama cabirka la saxay waa caadi. sawirka muhiimaddu waa inuu si guud shuruudihii oo white backgroundki iyo wixii la midkaa u waafaqo. okay xaaskayga ma ka tegi karaa hadday ii soo baxdo qarash awgeed? cajiib, aada u mahadsan tahay. xaaskaaga horta programkan waa programka ugu fudud ee laba qof isqaba ay hal mar ku wada safri karaan, fiisana ku wada heli karaan marka loo fiiriyo arrimaha kale ama dacwada familka oo waqti dheer 2-3 sano qaadato. haddii marka adiga aad go-aansato inaad xaaskaaga ka tagtid financial awgeed waa samayn kartaa, oo waxaa jira foomka markaa buuxinaysa inaad dhihi kartid xaaskaaga magaceeda inta sheegta aad dhihaysid islama safrayno saana ah hawsha adig kusii wadan kartid. laakiin waa easy way oo ku wada bixi kartaa. waxaana kugula talin lahaa inaad yani xal kasta oo aad isku raaci kartaan aad raadisid, maadaama markii horeba aad isku xareyseen. laakiin iskuma qasbanadiin oo ma lagu dhahayo ilaa xaaskaaga ma reebi kartid. dhalashada Muqdisho igu qoran Hargeysa waan joogaa, marka halkaa miyaan tegayaa? may walaal, warqadooda dhalashada haddii baasboor Soomaaliya dhalashada ay Muqdisho kuga qoran tahay, Hargeysa dhexdeeda adoo dhalasho ka qaadanayo waxaa qoran kartaa inaad xamar ku dhalatay. marka qasab maaha inaad dib ugu laabatid Muqdisho oo aad dhahdid dhalashada. haddii tii Muqdisho aad soo qaadatin it's good, waxa dhib ku keenayo maaha. haddii halka aad joogto aad ka qaadatid dhalashada laakiin lagugu qoro inaad Muqdisho ku dhalatay waa caadi. Cabdullaahi wuxuu dhahay haddii aan mar inta galo natiijada ay select noqoto aan arko inaan guuleystay oo aan ka baxo website-kii oo aan dib ugu soo laabto, macquul miya inaan mar kale arko natiijada meesha maysi kusii jiraa mise way ka baxaysaa? Cabdullaahi sanadka intuu socdo dhan natiijada meesha kugu jiraysaa anytime, daqiiqad walba ku laaban kartaa, natiijada isma bedelayso. waa sidaa walaal. qof ku fiican Englishka iyo ka waran translation dalbado soo isku si loola dhaqmi maayo. haddaa Englishka taqaano iyo haddaa translator dalbato waxba ma bedelayso badan. kaliya qofka Englishka ku hadlaayo waa un direct qofkan, maadaama uu aad waqtiga uu soo gaabinayo oo qofkan uu toos la hadlaayo. laakiin waxyaabihii kale shuruudaha wax badan kama tarayso, kama bedelayso. qofkan English uu yaqaanaa it's okay, waa inuu yani wixiisa loo dhameeyaa no, wuxuu la mid yahay dadkan kale. marka hawshu waa isku wada same, shuruudaha u wada qoran waa inaa waafaqdaa. aada u mahadsantihiin akhyaarta. almost waxaan ku jirnaa hadda 1 saac iyo rubi aan kusii soconaa. website-kana waa muhiim, linkigiisana waan soo dhigay maalin dhaweyd. diversity visa program oo wuxuu ka hadlayaa step 1 ilaa stepka ugu dambeeya 10aad wadooyinka aan mari doonto lootriga. marka haddii aad fahmayso inaad soo akhriso oo kugula talinayaa. haddaan dugsi sare ku xareysa ka waran, selectiga hore waxba saameyn kuguma keenayso, dadkaa la mid tahay. laakiin foomka dambe markaa buuxinayso primary kaliya lama ogolo, dugsi sare waa inaa haysataa ama shaqadii shuruudihii shaqada waa inaa kasoo bixi kartaa. marka aniga haddaan soo galay okay,
maya walaal dayax lama soo dhejin natiijadii waa 7 May laakiin su'aalo badan aan ka jawaabnay su'aalihii aan ka jawaabno dhanna muuqaalka markuu dhamaado waa soo dhigi doonaa meeshaan oo meeshaan aan ku reebi doonaa muuqaalka si cidii dib ka timaado uga faa'iideysato ogaaso waxay dhahday beledweyne aan joogo aan ka xareystay laakiin waxaan kaliya ayaa xareystay anigoo caruur iyo xaaji leh walaal caruurtaas iyo xaajigaas inaad ku dartay ahayd shuruudihiina waxay ahayd qofka inuu guurkiisa ka run sheego laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii aad guuleysatid inaad kaliya hawsha wadatid oo aad yacni caruurtaas waaweyn aadan ku dari karin haddii aad ku dartana adiga uu dhib kaaga imaanayo ay kusoo celinayaan marka waa inaad sheeganin oo aad dhahdid single baan ahay iyadoo ay fiicneed markii hore inaad caruurtaada ku darsato aad wax walba ka run sheegto laakiin haddana hawshaada singlenima inaad ku wadatay noqonaysaa walaal website linkiga noo soo dhig hadda waa mahadsantahay walaal waan soo dhigi doonaa halkaana waan ku qori websiteka laga eegi karo natiijada waa tvprogram.state.gov websitekaas ka fiirin doontaa natiijada insha Allah waana isla kii ka xareysay dadaa waxay u maleeyaan in oo loo soo dhigayo email lagu soo dirayo email ma jiro email wax lagu soo dirayo ma jiro waa inaad websitekan toos u gashaa oo aad natiijada raadsataa Ethiopia ka waran walaal interview haddaan ka dhigto Kenya soo kama fiicno Ethiopia iyo Kenya si guud isku sharci waaye laakiin diidbadan cusub oo hadda Kenya ka soo cusboonaatay ma u maleynaa inay ayada leedahay way dhaantaa dabcan waa ka dhigin kartaa walaal wixii ka soo baxana dad hadda ku maraya jiro bishaan iyo bisha dambe insha Allah waan ogaan doonaa waan idin la soo wadaagaynaa marka website marka gasho oo hadda hoos aan ku soo biin gareey waxa leedahay check status leedahay marka qaybtan hoos si aadaysa bluega ah qaybka Uganda ugu wareegsan kara Uganda looma wareegsan karo Uganda safaaradeeda fiisa loo tirima qabato walaal Nairobi ku soo diri doonaan ayaga xataa hadda u wareegsatid marka waa inaan safaarad kala aadaa kadib haddana waxaad sii leedahay continue walaal gaalkacyo ayaan ka xareysay hadduu ii soo baxo Djibouti ma la aadi karaa waa caadi walaal Djibouti iyo waddan walba adduunyada ku saabsan ku yaalo oo adiga aad dooratid waa xaq u leedahay okay waxaan helay journal in my interview date waa 17 May wali ma tagin my interview location Djibouti waaye marka ka hor interviewga waa inaad martaa medical test goormee ku habboonaan lahayd inaan aado Djibouti yani medical test imisa maalmood ayay qaadan kartaa si aad isu diyaariso aad qorshe ugu documentskaaga okay 17 May still waqti fiican waa haysataa waana kugu hambaleynayaa kolka hore selectigaaga iyo inaan interview appointment heshay I hope in WhatsApp group kan ku jirto hadii aad ku jirana si aan kugu daro bal wixii xogaa ayagana dad kala jira interview Djibouti ku qoran xaggaas ku kala qaadan kartaan waa qaybtan fariimaha nagala soo xiriir haddii marka interview appointmentigaaga 17 May ay tahay 17 May waxa ugu fiican inaad caafimaadka martid week ugu yaraan ka hor ama 2 week 2 weeks ugu fiican week ayadoo ka dhimay hadda xaadirtana it's okay marka inaad caafimaadka xilli hore iska sii marto way ku fiican tahay maadaama 17 May hadda ay ka dhimantahay inta April ka dhiman iyo waliba 17 days kale adiga inaad iska sii safarto insha Allah caafimaadkan xilli hore iska sii marto wax walba iska soo bixi karo qofka caafimaadkiisa waxyaabo kale loo diri karaa looga baahan karaa marka it's okay walaal insha Allah guulay kugu dhamaanay hawshaada marka website saan u soo kici doonaa halkan confirmation number inaad geliso lagu talagalay last name ka oo magaca uu ina halkaas gelisid year of birth sanadka kaliya inaad gelisid kadibna xarfahan oo captcha aad gelisid oo samee gareysid kadib natiijada waa arki doontaa dadka marka inta badan ku soo celcelinaysa u heli karaa confirmation number iga lumay halkaan forgad ay ku qoran tahay halkaan marka ku dhufato waxa lagu weydiin doonaa xogta asaasiga ahayd ee marka hore ku xareysay sida sanadka aad tahay DV22 ga hadda ku jira bas 23 ga soo gali doono kadib magacaaga last name first name iyo middle name sida uu qornaa marka xareynaysay iyo taariikhda dhalashada iyo emailkaaga kadib waa ku soo saaray confirmation number laakiin xogahaas hadaad qalado ma ku soo saari doono waa inaa laakiin xogta sideeda aad haysto
saaxiib Uganda iyadaan ka xariistay haddaa ka xariisatay waa caadi waa bedelan kartaa interview locationkaaga wadan kale waa ka dhigan kartaa ayaga Nairobi kugu soo qoraya marka aad Uganda ka xariisid adoo Soomaaliya joogo kale Soomaaliya iyo Uganda iyo Nairobi ku wada maraan marka waa sidaas walaal على قف أكون بنجيسا ميقال لجرا باشنكي مستبنكي من الأرقاق هره لفيرين سلام بانك سومالي بنجي انترناشنال سومالي ملا أكسبت جرينا بنجي انترناشنال بنجي ستيدمنتيو في عنه لكن انترناشنال سويفت له أو يعني بنجي وإنه يهاي لوكال أنا هين ما نبضنا الصومالي أنت بدنا بنجي استعمال شدة قف كان هوس وهيل كرابو قف هيل كا قف كالكوسي حرايو تاسا كاغفو لكن طبعا كنا كل قف قدوها هيستو سنجل وياي it's okay statementigaas يعني kaga filan tahay host inay ku qasbanayaan safaaradaha qaar ma weydiiyaan qofka meel uu tagay isaga u taala maadaama dawladda ay waxba ku siinayno public charge ay sarreeyeen inaan noqotid waa inay heshid qof ku soo dhaweeyo marka qofkaas ehel qasab ma aha waa qof asxaabta ah qof saaxiibaatiina qof ugu xiri karo ku bari karo dhigi karo ninkaas u dhaweey waxaan wax hal bil ka yar waay laga yaabaa in la joogto جروب واتساب كان وحو غاري ددك وينرسك ان شاء الله hadii aad guulaysayaasha kamid noqotana group cusub oo gooni ah sameeyna walaal website kan hore aan soo dhigay Mustafa website kan linkigiisana waan soo dhigi doonaa oo inaan page kan soo gelin doonaa duulaydmo waxaan noqonaa hadda inaan live ka baxadiisa aan soo geliyo moogta marka horena oo soo post gareeyay dhowr maalin ka hor waa arki doontaa qoraalka page ka ku soo dhaxar kartaa جبريل هذا ما صنته ماشي وفي عن سفارة ظهر دن مركي لوتر الشروع ذو اسكو هذا سيولال هذه قفوا كوغلات اليوم اللي بلايو يعني عندنا اي سيده ربتين قوي اذا واكيس كله لكن سوف سفارة هذا نيروبي دبك كجر الاركي ام بال ليها لا سغا wareegsado talaas um baa mixnayna laakiin wixii safaaradaha kale dawladdu waa isku sharci qofka hadda Asia aadi karo kale aadi u shaqeeyaan safaaradaha Asia way fiican yihiin wadanka si ahadan marka laakiin safaarada aadis waa ina ogtahay inay shaqeyso meel qof hore ku maray documentka Soomaaliya qof wato ku maray waxyaabaas xogaas marka haysa dhigi kartaa safar hiblaya fiican marka laakiin ilaa hadda safaarada sanadkan dadka maray interviewga ama hadda hawshooda socoto ugu xumeed Nairobi ahayd marka taa wixii ka soo hor dabcan shuruudihii loo tiriga qof walba waa uu dhaqan gelinaya waa qasab waana isku wada mid akhyarta aad baa u mahadsantihiin waxaan filayaa intaas inay nagu filan tahay insha Allah live kalena waan soo gali doonaa waxaan idin rajeynayaa guul natiijo fiican insha Allah oo ku wada farxdaan markii meeyta dawladda la gaaro inta hawshooda hadda socotana waxaan idin rajeynayaa khayr iyo barako iyo xawaa inuu Ilaahay hawshiina sida aad rabteen oo niyadiina ku jirto khayr la idinku dhameeyo inta sugaysana sidoo kale inaad guulaysataan oo insha Allah dhamaan Ramadan Kareem acmaasha wanaagsan iyo khayrkana Ilaahay naga wada aqbalo waan idin salaamayaa intaasaan ku joojinayaa live-kii waan ka baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.